daawadayaal ku soo dhawaada. Waa hooyo laga qaatay ilmihii ay dhashay 8 sano ka hor. Sababta looga qaatay ayaa ay ku sheegtay mid aan ahayn wax sidaas u buuran, iyadoo aan lagu soo eedayn wax dhibaato ah oo ay u geysatay ilmahan. Haddaba aan ku bilaabay marka hore, haddii aad ku sugan tahay Scandinavian, ku xidhnow bahda Modern Media barteeda Facebook iyo YouTube. 2020kii hay'adda daryeelka carruurta ee Norway loona yaqaano Barnevern waxay gacanta ku hayaan ilmo gaadhaya 9,247. Isla sanadkaas waxaa waalidkii dhalay loo celiyay 201 ilmood. Guri ay degan tahay gabadhan 34 jirka ah, magaceeda lagu sheegay Lynn, oo in arko ku booqdeen waxaa ku sharaxan sawirada Sofia oo ah hadda 9 jir kuna jirta gacanta Barnevernka. Laakiin nasiib darro, weli gurigan kuma noolaan Sofia. Telefoonka ay markaas ku wada hadlayeen Lynn iyo Sofia ayaa in arkay ku sheegay inuu ahaa mid dareen xambaarsan. Hooyada oo dareenkeeda celin weyday ayaa ka codsatay in ay rabto inay ku soo celiso. Hooyada ayaa ilmada celin weyday markii telefoonka ay ka soo baxday. Laakiin telefoonka wicitaankiisa waa mid ka mid ah farxadaha ay hesho hooyadani. Sababtoo ah 7 sano waxay booqataa gabadheeda 4 mar oo min 2 saac ah halkii marba sanadkii. Laakiin hadda waa loo kordhiyey oo waxaa looga dhigay 6 mar iyo 6 saacadood sanadkii. Waa tallaabo dhinaca fiican ah ayay sheegtay. 7 sano u dambeeyay, hooyada waxay marar badan u gudbisay codsi guddiga gobolka ee qaabilsan arrimahan, laakiin kuma guuleysan. Muddo hadda laga joogo 8 sano, Lynn waxaa lagu calaamadeeyay in aysan ahayn hooyo fiican oo aysan u qalmin inay koriso ilmahan. Sida in arko lagu qoray hay'adda daryeelka carruurta ama Barnevernka, sababo dhowr ah ayay sheegay inay u galeen arrinka Lynn sanadka markuu ahaa 2013. Degmada ay degan tahay ayay sheegtay in Lynn iyadu la soo xiriirtay sanadku markuu ahaa 2011 ka hor intaysan dhalanba gabadheedu. Hooyadan ayaa sheegtay in ay daalaneen maskixiyan iyo dhaqaale ahaanba. Lynn waxay markaas heshay in xaaladdeeda loo socdo maadaama ay dareemayso daalka ay sheegatay. 2011 dhalashadii gabadheeda waxay degmada ay ku nooleed Lynn dejiyeen guryaha gargaarka degdega loogu talagalay si xaaladdeeda loola socdo, halkaasoo muddo bila ay ku noolayd. Hay'adda daryeelka carruurta ayaa sheegtay in hooyadu ay maskixiyan daal dareemaysay. Aabaha ayaa la sheegay inuu dhintay sanadku markuu ahaa 2013. Hay'adda daryeelka carruurta ayaa sheegtay inay isku dayeen in ay siiyaan caawimaad kala duwan qoyskan. Ugu dambeyn, Lynn waxay heshay guri, midkaasoo Barnevern ama hay'adda daryeelka carruurtu ka caawisay. Qofka iska lahaa guriga ayaa hay'adda daryeelka carruurta u shaqaynayay. Lynn ayaana laakiin dareemin in mulkiilaha guriga ay dacwad ka gudbisay. Mulkiilaha ayaa sheegtay in aysan arkin Lynn iyo ilmahaba muddo fara badan, maalmaha qaarna aysanba guriga ka soo bixin. Halka sidoo kalena ay sheegtay inay dareento buuq iyo qaylo. Arrimaha walwalka ee soo gaadhaya hay'adda daryeelka carruurta ayaa ahaa kuwo soo badanaya. Maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in guriga Lynn ay soo booqatay dhakhtarka cilmi nafsiga laguna magacaabo Moon oo muddo yar kadib guriga laga furay soona gashay. Lynn waxay markaas dareenkeedu ahaa in la caawinayo, laakiin Moon ayaa ka gudbisay dacwo keentay in ilmaha lagala wareego Lynn. Kulanka dhex maray Lynn iyo Moon ayaa la sheegay inuu ka yaraa 45 daqiiqo, sidoo kalena dhowr mar oo kooban ku yeesheen khadka telefoonka wareysiye kooban. Moon ayaa dacwadda ku sheegtay in xaaladda si dhaqso ah loola wareego ilmaha meel kalena la geeyo. Moon waxa ugu weyn ay isticmaashay ayaa ahaa in cuntada ilmaha aysan ahayn mid fiican, nadaafaduna ay xun tahay, sidoo kalena aysan Lynn u qalmin inay hooyo noqoto. 2 maalin kadib waa lagala wareegay Lynn gabadheedii. Warbixin dheer oo hooyadan laga qoray ayaysan ku jirin in ay leedahay wax balwada, wax dhibaato jir ahaaneed ama maskaxi ahaaneedna u geysan ilmaha, iyada ahaana aysan wax xanuun ah sidoo kale u qabin. Arrinka yaabka sii leh ayaa noqday in qofka warbixinta ka gudbisay ay kulamadoodu yaraayeenba. In arko isku dayday inay wax ka weydiiyaan Moon, arrinkan ayaa diiday inay wax ka dhahdo. Lynn oo aad u niyad jabtay ayaa walaasheed iyo saaxiibadeed garab istaageen, iyadoo muddo kadib nolosheeda dab u sii wadatay. Sanadku markuu ahaa 2014 waxbarashadeeda sii dhammaystirtay. Lynn ayaa ka shaqo bilowday iskuulka carruurta, waxayna sheegeen madaxda iskuulku in Lynn ay tahay qof ilmo jecel, sidoo kalena shaqadeeda ka soo baxda. Haddaba hay'adda daryeelka carruurta Norway ayaa dad badan la aadeen maxkamadda bini'aadanimada midowga Yurub, waxaana gaadhay maxkamadda ilaa 40 dacwadood. Maxkamadda AMD oo ku taala Strasbourg ayaa kiisaska inta badan waalidka loo xukumaa, iyadoo hay'adda daryeelka carruurta dalka Norway ay marar badan wejigabax kala kulmeen. Fadlan si aad noola socoto ku xidhnow